waan ku salaamay daawada meel walbo aad joogtid ku soo dhawow qaybta xigta ee sheekada ku saabsan mashruucii la dagaalanka nuurka. buugani waxaa qoray Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac waxaana uu ka hadlayaa arrimo badan. soo gudbinta taxanahan waxaa taabageliyay Cisbitaalka Marwa Fertility Center, hooyiga daweynta dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka. dhar tayo badan oo Turki ah, qiimihiisuna jaban yahay, mara cadda style ugu hagaag, shaarar qurux badan iyo labiska jimka ama sportiska ayaad ka helaysaa hooyiga saxidda labiska dhalinyarada. la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. kama tarjumaya aragtidayada, laakiin buugga waxa ku qoran ayaan isku dayi doonaa inaan kula wadaagno min bilow ilaa dhammaad. qaybta xigta ee sheekada waxay ku bilaabanaysaa waxaa dhammaanaya 3 qarni iyo 9 sano oo dheeraad ku ah oo ay hurdaan ahlu xaqi. tamarta taban ayaa ka hormartay tamarta toogan badnaan darteed. waxaa kor u kacaya dhaqdhaqaaqyada iska caabinta walaalaha. dunida markii ugu horeysay muddadaasi 309 ku ah waxay wajahaysaa cabsi ku soo fool leh dumitaanka nidaamkii anseeska u taagnay 1717. heesta taas ayay ku cataabaysaa waxaana si dadban ay u sawiraysaa Big Brother oo calaacalaya. dadka qaar ayaa fahmi karaynin fariimaha tooska ee gudbinayo. jacayl ayay kugu sheegayaan, jacaylka meesha ka muuqdaana waxa la isweydiinayaa muxuu yahay. Berg oo ii sharaxaya heestaasi iyo macnaheeda ayaa waxa uu yiri Big Brother waxa uu u yimid inuu guuleysto oo uu dagaal ku dulleysto dadka isaga oo gumaysiga dheeftiisa maalaya kuna maamulaya dunida. marka heestu waxay cadeynaysaa qolada jihaadiyiinta ee qoriga noo qaatay ee doonaya inay soo celiyaan khilaafadii islaamka. waana markaas marka uu soo baxayo walaalka weyn ee aan u sii gogol xaarayno. The start coming and I start rising. waxa uu beedkan sheegayaa in soo bixistiisii ay taagan tahay, waxaana sii warsada waa kuma kan soo baxaya. wuxuu igu jawaabay ninka noo talin jiray weeye. waxaan weydiiyay muxuu tuducdaani uu kaga hadlayaa. me against them, me against the enemies, me against the friends. ninkii Berg ahaana ma uusan jeclaysan inuu ii fasiro tuducdaasi waxa uu faalaynayo. waxaanu igu yiri fila dhiig badan oo daata, mugdi iyo qiiq samada isxidha oo ku carceera. waan fajacsaday oo waa markii ugu horeysay oo aan si dhab ah u dhaado dhabaha guracan ee aan hayo. Berg wuxuu ii sharaxay tuducdaani hoose ku xusan oo igu fasiray marka culayska iyo cadaadiska maskaxeed iyo midka jireed la saaro diidmadooda waxay noqotaa yeelmo. waxaan kaloo aan weydiiyey maxaa loo diyaar garoobayaa. waxaanuu Berg igu yiri maalmihii murugada. haddana si degdeg ayuu iga dalbaday inaanu ka baxno tiyaatarka laga heesayay. waxaanu u kacnay qol hodheelka ka mid ah oo shumac kaliya uu ka daarnaa. intii aan ku sii aadanayn oo aan u sii soconayna waxa uu ii sheegay sir xasaasi ah oo aan u riyaaqay ogaanshaheeda. ayaan darase waan iloobay. heesta waxaa ka muuqata nin ciishoonaya oo maalmo badan xidhnaa oo aadamaha cadaawad weyn u qaba oo jecel inuu ka aarsado. nasteexa iyo nacabkaba isku si ayuu u necab yahay oo ula dagaalamaa. shaydaan ayaa sumadaasi ku astaysnaa, balse maalintaa kadib ayaan doonay inaan baaro oo aan ogaado cidda uu yahay Big Brother. ninkii Berg ahaana wuxuu igu booriyay inaan si degdeg ah ugu diyaar garoobo qaadashada darajada 23aad. waxaanu igu yiri waxa isku xiran sirta irideeda lagu ballaqayo iyo darajadaada. markaana hadhayalsan inaad marto marxaladaas. waa 40 cisho oo qura oo aad ku qaadanayso buur jasiiradani ku taalo oo lagugu diyaariyay. haddii aanad ka waxtarsan fursaddaanina waxay noqonaysaa inaad noqoto oo aan kuu sii qoondayno goob kale oo ay biyo ku gadaaman yihiin. 3 dharaarood ka gadaal ayay isoo ambabixiyeen waxaana la ii soo faray inaan toos u booqdo magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada Xalane oo aan fariin u siday. fariintu waxay ahayd jaadku aanu qofka caadi ah furfuri karaynin ee dahsoonayaashu ay ku xidhan yihiin, yacni fariin kood ku xiran. waxay u baahan tahay cid ii furta. in la ii furana waan xiisaynayaa, balse aqoon uma aanan lahayn waxa ay xambaarsanayd. ilaa iminkana ma aanan ogaanin, laakiin waan jeclaa inaan ogaado. socdaal dheer kadib waxaan soo gaaray magaalada Muqdisho oo burbur iyo banyaal aan la jeclaysanay uu ka muuqdo. waa magaalo dunsaneed guyaal door ah. waxay ay ku tahay kuwa sheegtay ilbaxnimada oo ka gaabiyay inay gurmad u fidiyaan. waxay noqotay meel aanay nabadi ka jirin iyo goob ay ku hurdamaan xoogag dana kala duwan leh oo gobolkan geeska ku sugan. muuqaalka guud waxaad ka dhex arkaysaa inaad timid dal la haysto. markii aan fooda geliyay Xalane oo u dhaqma sida dal ku dhex yaala dal kale ayaan anigoo aanan is ogeyn waxaan ku yiri occupational Israel. sargaal lahjadii Mareykanka ku hadlaya ayaa igu yiri maxaa kuu daran. uma aanan jawaabinse waxaan isku dhaafiyay kaftan. ciddii aan u socday ayaan fariintii gaarsiiyey oo waa la iga gudoomay dhambaalkii. waxyaabaha aan ku arkay ama kaagana igu riday waxaa ka mid ahaa goob ay ku jiraan cagafyo D10 ah
oo dhulka hoostooda qodaya. waxaan u qaatay kolkii hore inay diyaarsanayaan dhufaysyo ciidan, laakiin farsamo ahaan waa ay ka duwaneed dhufaysyo. macdan qodayaal ayay iigu muuqatay, ma aananse haynin wax ii caddeeya. isha qura ayaan ka arkayey, waan iska dhaafay oo isweydiintii ayaase gebi ahaanba iga harin ilaa beri dambe aan ogaado waxa halkaa ka socday. habeennimadii casuumaad ayaa la igu diyaariyey xerada dhexdeeda. waxaa igu wehlinaya wasiir xukuumadda ka tirsan oo magaciisa aan liqay. wuxuu ii sheegay inuu aaminsan yahay u furfurnaanta reer galbeedka, isaga oo laabta garaacaya ayuu ii sheegay in liberaal uu yahay, ku dhaqanka liberaaliyadana uu difaacayo. halkaana waa ka hirgelinaynaa oo waa iga go-an tahay ayuu yidhi. waxa uu ninkaasi ii sheegay inay jiraan xildhibaano taageeraya in dastuurka toos loogu daro xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ee asalka u leh. xog dheeraad ah oo ku saabsan labadooda iyo waxyaabaha ay ka sheekaysteen waxay ku qoran tahay qaybta ama beejka 86 ilaa 88 ee buugga mashruucii la dagaalanka nuurka. kulankii markii uu noo soo idlaaday ayaan ka dhoofay magaalada muqdisho. waxaan raacay diyaarad qaramada midoobay ay leedahay u socota magaalada garowe si aan usoo qabsado howlo shaqo oo halkaas iga jiray. garowe waxaan u imid cilmi baaris noo darnayd oo aanu doonaynay inaan ku ogaano aragtida guud ama sida ay bulshada u fakarayso. waxa ugu weyn aan daraasadaasi uga dan lahaa waxay ahayd inaan ogaano cidda ummadda ay aaminsan tahay. NGO dhalada ayaanu siinay qandaraaskaasi inay qaadaan daraasadaas. inta badanna ururada bulshada ma gaarsiisana in ay dhaadaan halista ay leedahay xogaha bilaashka iyo aqoon darrada ay ku bixinayaan. intooda badanna waxaa u daran lacagta yar misena faraguudkooda ah ee ay dhaafsiisanayaan mashruuc loo keeno, iyaga oo aanan eegaynin dhibta iyo dheefta waxa kaga soo biiraya. weydiimo dhowr ayaan u dejinnay oo ay bulshada la dhex marayaan si ay u soo ururiyaan macluumaad ku saabsan jawaabaha rayidku ay ka bixinayaan. falanqaynta iyo natiijada ka soo baxda jawaabahooda waxaa ku xirnaa howlgallo waaweyn oo la doonaya in laga fuliyo laba dal. waa kuwan warsidaha mudnaanta gaarka lahaa ee aan xiisaynaynay. bulshadu yay aaminsan yihiin? ma wadaadada, salaadiinta iyo siyaasiyiinta? yaad ku kalsoontaha marka la joogo garnaqsiga inay garsooraan? ma garsoor dhaqan, garsoor dowladeed iyo garsoor culimo? yaad ka qaadataa fasirka nolosha? ma aqoon-yahanka, ma culimada, mise abwaanada? yaad ugu kalsooni badan tahay hadalkooda? culimada, salaadiinta iyo siyaasiyiinta? yaana saamaynta ugu badan ku laha fikirkaada? ma culimada, ma salaadiinta iyo siyaasiyiinta? daraasadan waxaan sidoo kale aan ka samaynay gobolkan geeska afrika intii soomaali ay ku dhaqan tahay. waxyaabaha ka soo baxay ayaa xiise gaara lahaa. celcelis ahaan soomaalida 80% waxay aaminsan yihiin wadaadka. way jireen meelo kala duwanaan yari ay ka jirtay, balse ma aysan badnayn. tusaale ahaan garowe waxay aaminsan yihiin dadka ku nool 65% culimada, halka salaadiinta ay yihiin 30%, siyaasigana uu yahay 5%. hargeysa culimada waxaa laga aaminsan yahay 70%, salaadiinta 15%, siyaasigana 15%. way ka waayo gidisaneyd soomaalida kale oo wakhtigan daraasadu waxay ku soo beegantay iyada oo cadaadis xoog leh la saaray culimadii. haddana dadka jawaabaha bixiya daraasad si qarsoodi ah loo weydiiyey waxaa ka soo baxda in reer Jigjiga ay aaminsan yihiin 40% culimada, 47% salaadiinta, halka 12% ay ka soo baxeen siyaasiga. sida buugga lagu sheegayna Jigjiga wakhtigaasi laguma go'aan qaadan karaynin daraasadda sababtoo ah waxaa la sheegay in culimadii lala dagaalamay. waxaana la isla qaatay in Muqdisho 80% ay aaminsan yihiin culimada, 17% ay aaminsan yihiin salaadiinta, halka 3% ay aaminsan yihiin siyaasiga. Djibouti 75% culimada, 5% salaadiinta, 20% siyaasiga. NFD 70% culimada, 20% siyaasiyiinta, 10%na salaadiinta. markii aan u dirna waxay noqotay daraasad xiise gelisay ururka. waxaa la soo saaray xeeldheerayaal isugu jira qaar buuniyiin ku ah cilmi nafsiga, cilmiga bulshada iyo qaar kale oo xul ah oo loo yaqaano dhisiyaasha. nalama weydiinin natiijada iyo sida ay ugu waxtarsadeen. si weyn ayaa la iigu bogaadiyey markaasi hawshii aan qabtay. kadibna waxaan gartay mudnaanta ay leedahay daraasadan iyada ah. waxay ii soo daayeen lacagtii aan dallacday oo dhammay $35,000. qarashka igaga baxay garowe iyo hargeysa kama uusan badnayn 5,000 ilaa 5,800. beerag ayaasi ugu booriyey in lacagta aan weydiisto ururada NGO-yada daraasaadka fuliyey. markii uu ii sheegay inaan lacagta xaq aanan u lahayn ee qarashkooda oo qura ay leeyihiin ayuu beerag ii bilaabay danta ugu jirta iyo jabka ay la maagan yihiin inay siiyaan lacagta dheeraadka ah. inta kale ee lacagta soo hartay waxaanu ururada u siinaa si aanu laaluushka iyo musuqmaasuqa u barno. waxaanu ku niraahnaa soo diyaariya warbixintii sida aad lacagta u adeegsateen. markaas ayay inoo keenaan xisaabtii oo ay isku soo fariisiyeen annaga oo og raallina ka ah
inay cunaan baaqiga dheeraadka ah. marka koowaad waxaan ku kallifnaa inay been inoo sheegaan, marka labaad waxaan u cunsiinaa iyaga xaaraanta. sidaas ayaannu tallaabo ugu dilaa dadnimada xubin kasta oo ururka soo gashay, una tirtiraa waxa uu aaminsan yahay ee runsheegga iyo xalaal miiradnimada ahayd. waxaannu si dadban u dareensiinaa in mar kasta uu been sheego ama shaqo dheeraada uu qabtaa uu hayn dheeraada ama lacag dheeraada uu hananayo. qofka markaas ayuu damiirkiisii doorsoomaa, iyagose waxay moogan yihiin in lacagta aanu siinayno ay tahay dagaal aan ku burburinayno anshaxooda iyo waxa ay ku dhaataan oo ay tahay hoo oo hambeel, been sheeg oo bahdilan. ninka dhallinyarada ay ka shaqeeya NGO-yadan waxaan ku barbaarinaa musuqa iyo isdabamarinta. waxaan u naqaanaa madaxdii aayaha ee sumaysneed. kuwa aanu sumaynin marka ay madax noqdaan waxay noo fududeeyaan inay dalkooda ay ku hagaajiyaan oo ay bahda kaga saaraan musuqa, annagana ay noo fuliyaan qorshayaasha aanu wadanno. mar kasta oo aanu hooda u badinnaa oo u hagarbaxnaa ayay noo badiyaan iyaguna. goobaha howlaha qarsoon lagu hayo dadka NGO-yada lagu barbaariyo waxaa looga yaqaanaa oo ay ku naanaysaan obedient agents, dariyaal daacad ah. meel aanu tumaatin, waranka aanu tuurnaa ayay lacagtu aanu u bixnaa qoontaa. xoolaha yaga ayaa dila waxa aanay xabadda dili karaynin oo ah damiirka, kuwii xambaari lahaa diinta. mar kasta oo i baro xeeladahanidaasooonay dhagartooda wax u dhaawacdo, waxaan sii lumiyaa daacadnimadii aan u hayo ka mid ahaanshiyahooda. in ku siman 100 Soomaalidu waxay xoog u aaminsanaayeen salaadiinta. dhicitaankii khilaafadii Cusmaaniyiinta kadib waxaa hoos u dhacay saameyntoodii. Ingiriiska oo cuqaal ku dul sameeyey ayaa liciifiyey fikraddii laga haystay. Dag Marow wuxuu ku taliyey sidii aaminaada yar ee u sii harsan salaadiinta looga mayri lahaa. waxa uu qorsheeyey in la maalgeliyo oo la dhiirigeliyo caleemasaarka salaadiinta maqaarsaarka oo aan cidna matelin oo magacdil loogu dan leeyahay. bulshada aakhirkii iyaga ayaa iskood ugala noqonaya aaminaada ay ku qabaan salaadiinta. iyaga beddelkoodana waa in la aaminsiiyo waxay ugu yeereen liberal elite oo noqon doonta indha ay ku socdaan iyo dhega ay wax ku maqlaan. mashruucaasi salaadiinta la iima igman, waxaase aan tuhunsanahay in meel kale uu maray, gacmo kalena ay fuliyeen. ururka wuxuu khatar u arkaa halka ay marayso aaminsanaanta culimmada. waxay soo ansixiyeen howlgal lagula dagaalamayo meeqaamkooda, islamarkaana lagu kala jaraya aaminaada dhexdooda taalla. waa culimmadii iyo dadkii Soomaaliyeede waxay soo jeediyeen qorshe fudud oo dib loogu kasbanayo laabaha da'yarta soo koraysa oo ay ula baxeen Buy Pack Project. hordhaca mashruucaasi waxay ku soo qoreen dad meel ku furuur xiran uma jeedin kartid jid kale. kolka ugu horreysa waa inaad jartaa hoggaankaas. jaridda xarigaasina waa inay u dhacdaa hab xirfadiisii aad u sarreyso. waa inay ku eedeysnaadaan kuwa lagu jaraya dadka. gacanta dhexe ee kala goysa dadka iyo culimmada waa inay sinaba u muuqan. waxa qarsoon ayaa la ogaaday inuu ka saameyn badan yahay waxa muuqda. malaha waa mid ka mid a sababaha shaydaanku uu u doorbiday inuu ka qarsoomo kuwa sharka uu ugu yeerayo. iyaguna dariiqaas ayay maraan. dad culimo ku xidhanna way adag tahay inaad ka kaxayso aad jihaysaa. si loo dhiso bulshada cusub ee aanu doonayno waa in la helaa dad ay hawadoodu hogaaminayso. halkanna waxay u adeegsanayaan ereyga xorriyad. xaggoodana waxaa isku mid looga yaqaanaa hawada iyo xorriyadda. waxaa kaloo ku cad qoraalkaasi habmaamulka shuuciyaddu dadka ma u qaabayn kareen haddii aan laga jarin kuwa ay ku furuur xirnaayeen oo aanan loo samaynin hoggaan ugub ah oo ay ku daydaan oo dabaguraan. shuuciyaddu waa agab aanu adeegsanno mar walba oo aan doonayno in bulshada la dooriyo. qalabka ugu weyn ee laga dhaxlay tijaabadii shuuciyaddu ay samaysay waxaa kow ka ahaa awoodda dacaayadda loo yaqaano. dacaayadda marka la faafiyo waa hub burburin karaya aaminaada dadka. culimmada oo dhowr faramood laga weeraraana waxay jahwareer ku ridaysaa dadka. kolka koowaad waxaa lagu weerarayaa run dhaliil ku ah, marka xigtaana run iyo been isku dhafan, ugu dambeynna been mutaxan oo aan weliba loo meeldayn geedna lagula soo gambanaynin ayaa lagu weerarayaa culimmada. sidaasina waxaa ku talinaya xeeldheerayaasha mashruuca dejiyey. dhinaca kalena waxay tixraac ahaan iigu soo direen buugga la yidhaahdo Art of Deception ee uu qoray Mark Francisco, iyo sidoo kale midka la yidhaahdo Third Eye, The Psychology of Submission ee ay wada qoreen lamaanaha Douglas Carrel iyo Martha Carrel. buugaagtan waxay ku barayaan sida loo fuliyo dadka doorinta ee aanan la dareemin. waxaa ku xusan oo ay soo ururiyeen tijaabooyin qarsoon oo lagu sameeyey bulshooyin kala gedisan oo guud ahaan caalamka ah. waana buug la dawariyo oo gacmaha ururka oo qura ku kooban. looma ogola inuu soo gaaro dadka caadiga ah, waxaana la igula dardaarmay inuusan gacanteyda ka bixin mar qura. tallaabadii ugu horreysay ee howlgalka waa diyaarinta kulamo hoose oo loo qabanayo dadka la dhacsan fikirka qoomuluudka, furfurnaanta reer galbeedka
iyo fufka maanfur bulsho. kooxdaas ayaa la carinayaa iyaga oo looga waxtarsanayo xamaasadda ugubka ah ee ay la gubtahanyoonayaan. doodaha la dhexdhigaya waxaa loogu magacdarayaa dabarada maanka oo looga jeedo culimmada. mowduucyada qaar toos ayaa loo badheerayaa oo xayiga ayaa laga caddaystaa oo lagu qorayaa dooda caawa waa fahamka nolosha yaa wadaadka u xiray. mar kasta oo caadifadooda ay kacdo habeenada hore, mar dambe ayaa laga hadlaa dhaliisha culimmada oo run ah. halka marka ay marayso ayaa baraha bulshada lagu faafiyaa dacaayado ka dhanaa culimmada oo ay qoraan dad la guneeyey ama paid writers ama qoraayo been abuur ah oo aanan jirin oo aan u naqaano Just Author. qormooyinka ama maqaaladii oo daabacan ayaa lasoo dhexdhigayaa oo la odhanayaa bulshadu waa inay nala aragtaa dabarka inoo muuqda. intaasi kadibna waxaa laga dhexelayaa qaar dhiiran. midharkaasi ayaa waxaa loola baxayaa si gooni ah oo lagu guubaabiyaa inay hadlaan oo ay wax ka yidhaahdaan runta ooyeysa oo aanay cidna ka haybaysanaynin. muddo yar gudahood waxaa la helayaa qaar hadla oo wax qora. weliba waxay bulshada berigii hore xeerin jirtay ku tunta. markaas ayuu ambaqaadmayaa dabarfurka bulsho cusub oo ku dhisan qas iyo fowdo iyo wixii soo jirayba oo ay yasaan. intaasi kadibna gadaal ayaan u baxnaa oo daaha dabadiisa ayaanu ka daawannaa tusbaxa gunta ka furtay iyo dacaayadaha u faafaya sida xawliga ah. dirayaal badan oo bilaagunno ah ayaa hawsha garabkooda ka qaata oo iskood u qabta shaqo aanay garanaynin cidda iska leh iyo cidda u diratay toona. aqoon-darrada qarnigan way ka awood badan tahay jahligii hore. waa jahligii oo shahaado sita. jaahilka arrin uusan ku dhiiran karaynin ayuu ku dhiiranayaa jaahilka shahaadada dhabarka lagaga qoray, kaas oo lagu yidhi aqoon-yahan ayaa tahay. aqoon-yahanka samankaanina waa jaahilka dhabta ah marka loogu qiyaas qaato lunsanaanta. hawshaasi aanu bilownay farahii ayay ka baxday. waxay noqotaa tusbax furmay oo kale oo cid walba marka ay doonto soo iibsato. dheeshuna waxay sii dhabaqdaa marka culimmada iyo caamadu isku mawjad ay ka soo galaan. dunida aynu ku noolnahay qofka ka gaabaya inuu fahmo sida qayrka uu u degan yahay ama ay u degaan shaxda way adag tahay inuu isagana uu la dhigaa. qofka aanu garanaynin sida xarigga loo guntaa, sida loo furana ma garanayo. qofka aanan garanaynin si qayaanada loo maleego, sida la isaga faydaa ma fahmi karayo. midka aanan arkaynin tabta u tallaabsada sharku miyaa raadguri karaya xalka shifadiisa. qofka aanan aqoonin sida wax loo lumiyo miyaa fahmi karaya tabta wax loo hanuuniyo. nafta uu aayad u noqon weydo gudcurka miyaa ku cibro qaadan kara xujada caddada. kuwa isu tiiriya ee sheega sida loo dhiso bulsho ugub ayaa ka marakacaya awoodda qur-aanka ku sugan ee dhismaha bulsheed iyo ilbaxnimadoodaba leh. waxa uu mid ii qiray in aayad ka hadlaysa hubinta warka wacaal ahaanta kugu soo gaara ee ku cad suuratulxujuraad ay daawo iyo ka hortagba ay ka tahay dacaayad iyo wixii ay caga wadataba. bulshada maamulkaas iyo murtidaas ku astaysan ee haysata lama iibsan karo. waxaase uu kabadkood uu go'ay maalinta ay jeestaan. waana mar ay laf aan sidaasi ku kabantaa dhayal ahayn ka jabayaan ee aanu si fudud uga liibkeenayno. halkaa haynoo joogto qaybta xigta ee sheekada ku saabsan mashruucii la dagaalanka nuurka. sheekadaani waxaa qoray cabdiraxmaan cusmaan jaamac, anigoo maracadda ayaa kula socodsiinaya. qaybta xigta inta aan ku kulmi doonno nabadgelyo.